galmudug iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya 28 bishii juun 2019 ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf ayaa wada hadallo arrimo miro dhal ah ku yeeshay magaalada cadaado maalintii khamiista ee taariikhdu ku beegnayd 27 juun 2018 ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa ka wada hadlay qodobo muhiim ah oo la xiriira arrimaha dib u heshiisiinta doorashooyinka galmudug iyo sidii loo dhammayn lahaa kala aragti duwanaanshaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug falaqayn iyo wadatashi dheer kadib waxaa la isla meel dhigay qodobada hoos ku xusan 1 madaxdu waxay si wada jir ah u bogaadiyeen soo dhoweyntii diiraneed ee 26 juun 2019 loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre magaalada cadaado 2 madaxweyne xaaf iyo ra-iisul wasaare khayre waxay isla garteen in la dejiyo geedi socodka iyo hanaanka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka si loo helo galmudug midaysan 3 in dowlad goboleedka galmudug ay qaadato kaalinteeda kaga aadan arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka iyada oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya number 4 si ay u noqoto caasimad loo dhan yahay oo leh maqaamkeeda waa inay hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay si buuxda uga howlgalaan magaalada dhuusamareeb 5 in dowladda federaalka soomaaliya ay soo celiso kabistii miisaaniyadeed ee galmudug si loo dardargeliyo arrimaha amniga iyo adeegyada kala duwan ee bulshada galmudug dhammaad wabilaahi towfiiq